shimbirka owl Soomaaliduna u taqaan guumeys ayaa kamid ah shimbiraha la yaab kale ee dunida aynu ku noolnahay maanta laga helo. Soomaali badan ayaa u isticmaala marka gabadha guurka ka daaho inay yiraahdaan waa guumeys. Shimbirka guumeyska ayaa ugaartada xayawaanada yaryarka ah ee naasleyda, cayayaanka iyo shimbiraha. Mararka qaarna waxa uu ugaarsadaa kalluunka, waxaana laga helaa wadamo badan oo dunida maanta ku yaala. Shimbirkan ayaa sidoo kale awood u leh inuu duulo xilliga habeenkii ah, isagoo ilaa iyo hadda saynisyahanadu ay la yaaban yihiin awoodda shimbirka ee ku aadan aragtidiisa habeenka. Qoomiyadda Kikuyada ee degta dalkan Kenya iyo Soomaali badan waxay u arkaan shimbirka guumeysku inuu yahay qumay. Haddii qof uu arko shimbirka guumeyska ama uu maqlo codkiisa, waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in qof uu dhimanayo. Wadanka Mongolia ee dhaca qaaradda Asia waxaa looga arkaa shimbirku inuu yahay shimbir qumaya, halka dalka Japan looga arko shimbirkan mid muujinaya ididiilo iyo nasiib wanaagsan. Dhanka kale, qoomiyadaha Abaja iyo Seminole ee ku nool dalka Mareykanka ayaa u arka shimbirka guumeyska shimbir sheegaya geeri, waxaana marka ay maqlaan qaylada shimbirkan ay caruurta ku celiyaan guryaha iyagoo sidoo kale albaabadana xidha. Qoomiyadaha kala duwan ee dunida ku nool ayaa qoomiyad walba waxay leedahay dhaqan gaar ah iyo aragtiyo ka duwan ta kale.